murtida maanta. wadaantii isha ka xumaata faylkay la tagtaa. iyadoo ay wax waliba yeelan karaan cirib dambeed samaada ama xumaada ayay naftu dhanka samaanta milicsataa una muhataa. markaasaa abuuris ahaan wixii samaantoodu soo hormartana laga maqsuudaa, wixii ay xumaantoodu soo hormartana laga murugoodaa. abuuristaasina waxay aadanaha macallin ugu noqotay hanaankii ay u farsamaysan lahaayeen waxyaalihii noloshooda lagama maarmaan u ah amase arrimihii kale dhaqankooda saameeya ee ah in bilowgooda la maamul hagaajiyo si cirib dambeedkooda loo mahadsho. taasna aynu meelo isaga muujine dhismihii la maageerayo haddii aan loo samayn moqotin adag wuu dumaa. wixii farsamo ahoo ay ka mid yihiin tumidda, qoridda, tolidda, falkinta iyo wixii la halmaalana haddii aan namuunadii laga rabo unugga lagu muunayna milgo saasa ma yeeshaan. muraadkii laga rabay oo loo washarayna hagaag uma qumiyaan. si aan haddaba loogu khatalmin arrimahaasoo aysan imooti ugu dhicin ayay soomaalida oo murtidhaari ahi hawraartan uga mahmaahday. macnaheeduna waa hee, haddii wadaan loo riday moolkii ceelka iyo meeshay biyuhu ka soo maaxanayeen, dhuraal iyo doojimaal miduu ahaadaba ee aanay soo buuxsamin, la ogo kelibalow iyo dhimanaan bay dibadda la timaada. isha ceelkuna waa meesha ay biyuhu ka soo burqadaan. faylkana kaalinka iyo darka loo wataa. macnaha ka sii weyn kaasoo meesha ka dhalaalsamayaana waa dulucda murtida oo iyadoo laamo badan ku afmeeran arrimihii la doonayo in si fiican loo meel mariyo, manaafacaadsi dambena ay yeeshaan, in lagu abaabulo maskax ay dhiifoonaani ku milan tahay oo aanay bilowga ka xumaan. waa marka keliya oo laga maag heli karaaye. wadaantii isha ka xumaata faylkay la tagtaa. aynu ka tix raacno murtidan meelaha ay gaar ahaan taaban karto. carruurta yaryari waa ubixii dalka, irkadkii waalidka iyo aayihii ummadda. lana ogsoone waxay murtidu uga jeedaa si iftiimin. oo inkastoo ruuxa waalidka ahi uu ilmihiisa ka walwalayo aayahooda ku dadaalayo haddii uu aqoon leeyahay, misena waa inaysan ka asluub xumaan xagga guriga laylintooda yaraannimaduna yeelan iimo ay ku weynaadaan. guriguna waa dugsigii koowaade ilaalinayay arrimaha yaraannimada, waana meesha ay unugyada bulshadu ka soo abuurmayaan. mar haddii aan cunugga anshax iyo asluub wanaagsan lagu ababinna, waalid iyo ummad midna wax u tarimayo mana manaafacaadsadaan. oo waa aroorka murtidan odhanaysa wadaantii isha ka xumaataa faylkay la tagtaa oo xagga waxbarashadana u faallaysmi karta. ayay haddana murtidaani sarbeebanaysaa in qof waliba sugo waxa uu baranayo, siiba marka uu bilaabayo uusan boobsiis ku dhaafin, casharo aanu qumaati u kasin, farsamo aanu hagaag u salayna uusan dhaafin. dalkii ay waxbarashada
dadkiisu sidaas u dhisantaana hor umarkiisu wuu soo dhaqsadaa dunida kalena taageeruu siiyaayo abbaarta aadminimadu kaalintiisa ka soo baxaa